Dadasoo ah 20kii bishii aynu soo dhaafnay October oo ahayd maalin axada cigaal international airport waxa ka dhacay diyaarad la flight Dubai flightkeedu ahaa 661 nooceeduna ahaa Boeing 737/800 in ay khatar gashay oo halkaasi ku burburi gaadhay diyaaradaasi waxa saarnaa dad ku dhow 100 qof waxa sababta khatarta keentay ay ahayd in cidii fadhiday towerka ee diyaaradahaasi hageysay ay siiyeen hawo qaldan oo aan diyaaradaasi ku bedegi kareen haba yaraatay halka waxa ka muuqatay inuu ninka diyaaradda waday ee pilotka ahaa nin expert oo khabiira oo waaya araga uu arkayay garoonkaasi inaanu ahayn mid uu fadhiisan karayo ay tahay mid uu khatar ku galayo cidii hageysay waxay ku tiro fadhiisan kartaa fadhiiso tiraba 3 jeer go'aan buu ku gaaray markii dambe inuu fadhiisto in dalka Djibouti rakaabkii uu siiyay halkaasi uu dhigo oo tiradoodu ahayd 100 qof waxaynu ognahay sanadkan soo dhaafnay in diyaarada ay leedahay shirkadda diyaarada Ethiopian Airlines ku burburtay magaalada Addis Ababa dusheeda halkaas dad fara badan ku nafwaayeen sidoo kale warqabno lacag ka badan $150,000 ayaa qofkiiba lagu maqaatay diyaaradaas diyaarad 100 milyan lacag ku dhow qiimaheedu yahay bay ay flight Dubai leedahay ay Soomaaliya hargeysa ku aamintay 150 qof iyo diyaaradda 100 milyan dollar wax ku dhow joogtaa si fudud oo shaqaale xumo ah ay halkaas ugu burburi weeyday arintan xisbi ahaan in badan baanu sheegnay halkan ka sheegnay siriya aad waanu sheegnay dhaxan jalaade dhig baan shaqo laysii nima dhageysan waxaana sabab u ah qadiyadan in 24 shaqaale ah oo khibrad u leh oo waxaan muddo badan ka shaqeynaya arrimaha aviation-ka si fudud uu eriyay maareeyaha hay'adda duulimaadyada arrimaha socdana waxa moodaa madaxweynuhu inuu ka adkaysanayo oo aanu maxay heetole waxba ka qabanayn laakiin si marka ay dhibaatooyin kari dhacaan waqtigooduna inoo uro ayaa lagu baraarugi doonaa noqon doontaa in ma garanaysaayeen la isweydiiyo siday ku dhacday waxaan doonayaa dadkeenan maanta halkan uga sheego waxa isaguna khatar ku jira runway oo mid ah burburay diyaaradu isticmaal kale lacag badan hore u gashay waxa kale oo isaguna jira maalin dhawtoole la dhisay oo dawladda hoose hargeysa mashruuc lagu siiyay taxiwaygi oo haba yaraatay maanta aan la isticmaalin oo isaguna burbursan arrimaha cadeymahooda ee saxaafadda waanu siinaynaa waxa kamid ah codkii ay duubtay diyaaradii flight Dubai waxa kaloo kamid ah warqadii ashkatadaha ee cigaal international airport loo soo diray madaxweyne haddii aad cid dhageysanayso waxa dhageysan boqolkii oday ee ku hor yimid ee kula garnaqsaday ee inay xilsi qari hogaaminayeen sama filaayeen tan wax ka qaban doonto arrimaha socdana aad dhageysan doonto way waxa la yiri madaxtooyada caadadeedu waa dhaga adag waxaana tan fursad u siinaysaa haddaynu eegno waxyaabaha ka dhalanaya ama aynu sharaxno kow in diyaaradihii caalamiga ah dhammaantood ay ka joogsadaan garoonkan hargeysa oo u wareegaan xamar laba waxa kale fursad u siinaysaa dawladda Muqdisho inay iyadu si buuxda maadaama hore ula wareegtay hawadeennii imikana maamulkeedu ula wareegto diyaaradaha Soomaaliland isticmaalo dhanna ay u sheegto ilaahay madaarka hargeysa iyo Soomaaliland ku filayn inay diyaaradaha caalamiga flight Dubai iyo al-Arabiya ka mid yihiin inay maamuli karto ama ay heegarto taasi bedelkeedna waxa loo leexin doonaa dhammaan flightada noocaasa magaalada Muqdisho iyadoo diyaaradaha yar oo jida laga soo diri doono tala ahaan waxaan soo jeedinaynaa kow in laga qabto maareeyahan hay'adda duulimaadyada rolol oo xafiisyada dawladda ka dhigay kuwa qabaliya oo dad aan khibrad lahayn iyo inama uu adeer u yahay meel kasta uu dhibay oo ku soo ururiyay laba in shaqaalihii waxaan aqoontoodu ahayd xirfadooduna ahayd muddada badan ka shaqeynayay muwaadiniintana ah 10 qof oo gorow u tagay mooyee badidooda 24 hargeysa joogaan loo yeero oo shaqadoodii lagu celiyo hawlahana ay sidoo wataan waayo dan umadeed bay ka shaqeynayeen dan qaran ee mid iyaga baahiyahooda kama shaqeynayeen inahaasan maxay tole jeclaan lahaa maanta muddo loo wadeego xukuumadda kula talino aad iyo aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nuuridiin waxa sheegtay in diyaaradda flight Dubai ay khatar gashay waxyaabaha sababta u ah ma caddayn maxaa sabab u ah la oran karaa in diyaaraddaasi ay burburi gaadhay oo ay iyadoo duulimaadkeedii wadata
ay dadkaasi saameyn ay ku keeni lahayd walaal waxaa sabab u ahaa in diyaaraduhu markay soo fadhiisanayaan arrinta meesha ka dhacday waa run kelmad muhiim baan ahayd inaan idiin sheego in outdated bay ahayd waxa meesha ka socday oo diyaasad soddonkii minida kastaba waxay in hawada la update gareeyo oo update-ka jira saxda ah loo sheego diyaaradaha degaya laakiin update hore oo 2 saacadood ka hor ama 3 saacadood ka hor baa loo sheegay diyaaraduna xilli hore degaysay marka cimilo khatar baa jirtay oo daruura jiray dhulka dhabaa haysatay runwayga diyaaraddu may arkayn dadkii khibradda u lahaayay waxaan hagi lahaana shaqadii waa laga celiyey sababta ugu weyn taasay ahayd oo qolooyinka aviationka aqoonta u leh luuqa ahaan markay isticmaalayaan waxay ahayd in xagga cimiladu ay ka ahayd outdated oo aanay taasi wax update oo saxa aan la siin diyaaradda soo fariisanaysa taasaa horta sababta koowaad ahayd talabaadna walaal waxa weeye in dadkii xifradda iyo aqoonta u lahaa arrimahan duulimaadyada ee diyaaradaha kicinayay fariisanayayna shaqadii laga caydiyo laga eriyey oo maanta bannaanka fadhiyaan 11 inanoo kuwaasi tababareen qaarkoodna dee tababar yaro basiga lagu soo siiyey Addis Ababa ayaa jooga garoonka oo hadda shaqadii gacanta ku haya oo adeeg intaa leegna ay doonayaan inay qabtaan runtii mana aha kuwo qaban karaya qasaarihii koowaadna waa kan maanta dhacay waxaasoo dhanna waxaa sabab u ah waa dowladdeena oo markii itaal u weyday inay maxay ahayd tulay hawadeeni gacanta ku haysoy maamusho waxay itaal u yeelatay shaqaale xirfadda lahaa inay meesha ka erido sababtu waa taa soo dhawaad xogaha duulista iyo hawada xisbiga wadani waxaad u jeedisay maarayaha hay'adda duulista inuu si qabil iyo dad shaqaale ku shaqeeyo caddaynta rasmiga ah ee hadda warbaahinta ku hortaagan ee ku saabsan arrintaas soo sheegay walaaliin waa arrin fiican waana arrin aad iyo aad u muhiim ah haddaynu eegno arma aan finance-kii hay'adda duulimaadyada Somaliland haddaynu eegno qismijigeedii haddaynu eegno maamulihii dalka iyo parkinka haddaynu eegno dadkii awoodda gacanta ku hayay intaba wuxuu ku xeeray inama uu adeeg u yahay isagoo dadkii xirfadda u lahaa eriyay waxaa kaloo ka mid ah inuu ninkaasi de runtii ma aha qof shaqayn karaba waa nin ma garanaysaa runtii beeshna weeye oo meelo badan mushaharka qaato hore usoo shaqaynayay marka haddaad tagto garoonka cidda maamusha aad soo eegto taasi way kuu muuqan kartaa marka waxa loo isaga qortay hay'adda shaqaale looma soo marin waa shaqaale cusub isagoo u kaashaday hay'adda waa shaqaale cusub